kulan wacan daawadayaal meel walba caalamka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena wararka isha sirdoonka ee siyaasadda qodobada aad ku daawan doontaanna waxaa kamid madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo khudbad ka jeeday 60 guuradii ka soo wareegtay xornimada Soomaaliya ilaalada kacaanka Iiraanna waxa ay sheegeen in ay saldhig ka furan doonaan badweynta Hindiya safaaradda Mareykanka ee Muqdisho oo beenisay in la bedelay ambassador Donald Yamamoto ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya oo ambabaxay dalka Qatar qodobada iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan u diyaar garooba isagoo fidsan dawladda Ruuska ayaa u dabaaldegtay 75 guuradii ka soo wareegtay maalintii guusha ay kaga adkaadeen dagaalkii Naaziyiinta Germany waxa munaasabad ballaaran lagu qabtay fagaaraha cas ee Moscow oo lagu shaqlay nooc kasta oo cudud ciidan ah iyada oo halka joogeen madax sarsare oo Ruuska sida Vladimir Putin iyo qaar kale oo ka socday dalalka caalamka waxa sidoo kale ka qayb qaatay ciidamada kala socday India, Shiinaha, Serbia, Mongolia iyo dhowr dal oo hore uga tirsanaan jiray midowgii Sovieti kuwaas oo dabcan ka qayb qaatay guusha loo baaldegayay waxaana dadka militariga ka faalooda ay sheegeen in maadaama ay ka qayb galeen fantastiyahan wadamo hore uga tirsanaan jiray midowga Sovieti ay dib mar kale u yagleeli karaan midowga Sovieti maalintan oo ku beegan 9 bisha balse koronaha dartii dib u dhacay ayaa ah mid kamid ah maalmaha qaran ee ugu muhiimsan taariikhda casriga ah ee Ruushka waayo waxa maalintii ay ka adkaatay Naazigii Germany oo mar sigay in uu iyaga qabsado dagaalkii labaad ee adduunka iyadoo maalintan lagu maamuuso askartii Ruushka difaacaysa ee dagaalkaasi ku dhimatay militariga dalka Ruushka ayaa sanad kasta bandhigan ku soo kordhiya sheeko cusub gaari cusub oo loo sameeyay saraakiisha ciidamada dalkaasi iyo madaxweyne Putin oo xafladan ka qudbeynayay waxa kale oo la soo bandhigay taangiyadii dagaalka xilligii dagaalkii labaad oo dib loo casriyay kuwaas oo ah kuwa maanta caalamka ugu khatarta badan aynu ku horeysiinay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka hadlay qiimaha xuska toddobaadka xorriyadda iyo midnimada dalkeena ayaa ku booriyay dhammaan muwaadiniinta Soomaaliyeed in ay door ka qaataan dabaaldegga sanad guurada 60aad ee ka soo wareegtay xorriyadda Soomaaliya ummadda Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa koonfur iyo waqooyi ciroole iyo caruur rag iyo dumar mucaarad iyo muxaafad dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan waxaan ku boorinayaa in ay si mug leh uga qayb qaataan xuska sanad guurada 60aad ee toddobaadka xorriyadda iyo midnimada Soomaaliyeed ayaa uu yiri madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya madaxweynaha ayaa ka codsaday muwaadin kasta in calanka jamhuuriyadda iyo astaanta qaranka uu suro hoygiisa goobaha ganacsiga iyo xarumaha dadweynaha si aynu u muujino farxadeena ku aadan maalmaha qiimaha badan uguna faano taariikhdeena iyo qarannimadeena muwaadin kasta oo Soomaaliyeed meel kasta oo caalamka ka joogo waxaan ka codsanayaa in uu dabaaldegga 60 guurada ka qayb qaato guryaha goobaha la isugu yimaado iyo goobaha ganacsiga la suro calankeena ubadkeena aan uga sheekayno taariikhda xornimada dalkeena ayaa uu yiri madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aynu qodobka inta kaga gudubnay dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salman ayaa amray in la soo xiro qoys sarkaal hore uga tirsanaa sirdoonka si cadaadis loogu saaro in uu soo gacan geliyo dukumeentiyo xasaasi ah oo uu hore ula baxsaday sida ay baahisay wakaaladda wararka Reuters afar ila wareed oo xaaladda ka warqaba lana hadlay wakaaladda wararka Reuters ayaa sheegay in dhaxal sugaha uu amray in la xiro qaraabada Saad al-Jabri iyadoo ujeedku yahay in sarkaalka sirdoonka hore uga tirsanaa lagu qasbo in uu Sacuudiga ku soo laabto kana yimaado Canada oo iminka degan yahay xariga ilmaha waaweyn ee al-Jabri ayaa waxa la sheegay in Maxamed bin Salman uu ku doonayo in uu ku helo qoraallo sir ah oo la qoray xilligu xafiiska joogay sarkaalka baxsadka ahaa xilligaas oo muddo fog la taliye u ahaa Maxamed bin Naif oo ah Maxamed bin Salman in adeerkii waxa uu ahaa dhaxal sugihii hore ee taajka Sacuudiga waxaana jagadaasi laga tuuray sanadkii 2017 ka sokow in uu doorka dhaxal suganimo wareejiyay bin Naif waxa mar kale la xiray bishii Maarso ee sanadkii la soo dhaafay taasi oo qayb ka ahayd xariga saraakiisha boqortooyada ka tirsanaa kuwaas oo Maxamed bin Salman uu arkayay in ay khatar ku yihiin awoodiisa ila waraadadu waxay sheegeen in maalmo kadib markii dib loo xiray amiirka wiilkooda 20 jir iyo gabar 20 jir oo u dhalay al-Jabri in iyagana la xiray kadib markii la weeraray guri ay ka deganaayeen magaalada Riyaad ee dalkaasi Sacuudi Carabiya waxaana ku xigay al-Jabri walaalkiis oo la xiray bishii May mid kamid ah ila wareedada ayaa wakaaladda Reuters u sheegay in muddo la doondoonayay al-Jabri oo gacan yara u soo ahaa Maxamed bin Naif qoraaladaasi xasaasiga ah ee uu haayo sarkaalka sirdoonka hore uga tirsanaa jiray sida ay Reuters sheegtay waxay ka kooban yihiin akhbaar loo isticmaali karo kuwa siyaasadda
uga soo horjeeda Maxamed bin Salmaan iyo sidoo kale akhbaar si dhab ah u dhaawici karta dhaxal sugaha iyo aabihiis Boqor Salmaan. sidoo kale qoraalka waxa ay ka kooban yihiin akhbaar ku saabsan hantida uu dibadda ku leeyahay Maxamed bin Naif, taasi Maxamed bin Salmaan uu adeegsan karo amiirka xiran. mid ka mid ah ilawareedyada oo hore u ahaa sarkaal ka mid ah saraakiisha amniga ayaa sheegay in Al-Jabri uu sidoo kale haysto faylal ay ku jiraan faahfaahin lacageed iyo macaamiil saraakiil sarsare ee boqortooyada ka tirsan. qoyska Al-Jabri waxay raadinayaan taageerada Mareykanka oo ah xulafo u dhow Sacuudiga iyaga oo rajeynaya in cadaadis uu Mareykanku ku saaro boqortooyada si dib loogu sii daayo. waatay daawadaal qodobkaasi hadda inta kaga gudubno qodobadeena kale ayaad ku daawan doontaan wixii ku soo kordhay iminkana safaaradda Mareykanka. safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa beenisay in la bedelay Ambassador Donald Yamamoto. afayeen u hadlay safaaradda ayaa VOA u sheegay in Ambassador Yamamoto uu wali yahay safiirka Mareykanka ee Soomaaliya. wixii su'aal ku saabsan safiirka la magacaabayo mustaqbalka waxa ka jawaabi kara aqalka cad ayaa uu yiri afayeenku. safaaradda Mareykanka waxa magacaaba aqalka cad waxaana ansixiyay aqalka sare ee Koongareeska Senadka waxaana howlgal qaadan kartaa dhowr bilood. safaaraddu waxay ku shaqeynaysaa rabitaanka madaxweynaha taariikhda ahaana waxay caadiyan xilka hayn kartaa 2 ilaa 4 sano. Ambassador Yamamoto waxa uu muddo dheer ahaa shaqaalaha wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka waana sarkaalka shaqeynayay muddada ugu dheer. bishii May aynu ka soo gudubnay ay u buuxsantay 40 sano oo uu soo ahaa shaqaalaha wasaaradda arrimaha dibadda. inkastoo uu yahay sarkaalka shaqeynayay muddada ugu dheer haddana waxa uu marayaa meertada isbedelada muddo xileedka taasi oo u baahan in uu madaxweynuhu magacaabista sameeyo kadibna sanadku ku ansixiyo sidaasi. ilaa haatan cidna looma magacaabin in uu bedelo Ambassador Yamamoto waxa uu sii haynayaa shaqadii inta taasi laga gaarayo. waatahay qodobkaasi wixii warar ku soo kordha waxaad ku daawan doontaan wararkeena dambe. maamulka Falastiin ayaa sheegay in uu diyaar u yahay in uu Turkiga la galo heshiis lagu baarayo shidaalka ku jira badda Falastiin sida uu sheegay ergeyga Falastiin u fadhiya Ankara Faiz Mustafa. waxaan u furanahay aragti kasta oo lagu sii dheereyn karo xiriirka aanu la leenahay Turkiga waxaana taa ku jira in aanu Turkiga kula heshiino baaritaanka aaga dhaqaale ee noo dhowran ee badda EEZ ayaa uu Mustafa yiri. Falastiin ayaa badda dhexe xad kale leh dhanka marinka Gaza waxayna taasi siinaysaa xuquuq ay ku saamin karaan shidaalka ku jira bariga badda cas. ha yeeshee Israa'iil ayaa diidaneyd in la baaro gaastaasi laga helay sanadkii 1999 30 kilomitir meel u jirta daanta Gaza oo ay go'doomin buuxda ku jirtay tan iyo sanadkii 2006 oo ay maamulkeeda la wareegeen kooxda Hamas. gaaskan oo lagu qiyaasay 1 trilyan oo fuusto ayaa la soo saari karin maadaama ay marinka Gaza go'doomin ku hayaan Israa'iil iyo Masar oo dhinacyada ka kala xiga taasuna ay keentay in 22 sano aan la taaban karin shidaalkaasi. kama faa'iideysan karno gaaskeena go'doomin Israa'iil darteed ayaa uu hadalkiisa raaciyay Mustafa. marka la eego xeerka badaha ee qaramada midoobay dal kasta oo xeeb leh waxa uu sheegan karaa 320 kilomitir oo ka dhigan EEZ balse marka la eego qaabka ay u samaysan tahay badda dhexe waa dhib badan tahay taasi waxaana markasta loo baahan yahay in ay dalalku wada xaajood ka yeeshaan iyo xeer jajab si arinta meesha looga saaro. Turkiga ayaa heshiis la galay Liibiya si uu u baaro shidaalka bariga badda dhexe waxaana sidoo kale isku dhegan dhammaan dalalka ku xeeran baddaasi. ciidamada badda Iran ayaa sheegay in ay saldhig joogto ah oo dalkooda ka baxsan kii abid ugu horeeyay ay ka samaysan doonaan badweynta Hindiya marka uu dhamaado sanadkan. Iran haatan socda oo dhamaanaya 20 bisha Maarso sanadka 2021 sida ay baayisay warbaahinta maxalliga ee gudaha Iran. madaxa ilaalada jamhuuriyadda kacaanka Iran Ali Reza ayaa sheegay in ay Iran danaynayso in ay ballaariso hardanka ay Mareykanka kula gasho gacanka Beershay iyo marinka Hormuz. sida uu qabo Tangiziri ciidamada ilaalada kacaanka Iran ee la geynay badweynta Hindiya oo looga gol leeyahay in ay maraakiibta kalluumaysiga Iran ka ilaaliyaan waxa uu ku sheegay burcadbadeed iyo maraakiibta shisheeye waa sida uu hadalka u dhigay. waa markii ugu horeysay ay Iran saldhig ka samaysato meel ka baxsan gacanka Beershay waxaana Tangiziri sheegay in ay ka jawaabayaan amar ka yimid hogaamiyaha sare ee ruuxiga Iran Ayatollah Ali Khamenei. sanadkii 2008 Khamenei oo sidoo kale ah abaanduulaha ciidamada qalabka sida Iran ayaa soo jeediyay in ay ilaalada jamhuuriyadda ilaaliyaan maraakiibta kalluumaysiga ee ka jooga badda Oman iyo badweynta Hindiya. lama sheegin dal ku yaala gobolka oo ay saldhiganayaan sidaa darteed waxay u eg tahay in uu saldhigoodu guurguurayo oo ay saldhiganayaan biyaha caalamiga ah
Iran ayaa ku doodaysa in ay la xifaaltamayso Mareykanka sida ay cadaysay dowladda Soomaaliya waxay boob ka wadaa biyaha Soomaaliya iyadoo oo laga sheegay in laga tiriyay wax ka badan 112 markab iyo doonyo ay Iran leedahay oo halka ka jalaabanaya waxayna u egtahay in uu qorshahani yahay mid lagu ilaalinayo kalluumaysiga sharci darrada ah maadaama ay badweynta Hindiya ka fogtahay Iran oo aan wax xad ah la lahaynin haba yaraatee واتاي qodobka intaas uu kaga gudubnaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta safar shaqo ugu ambabaxay magaalada Dooxa ee dalka Qatar halkaas oo dhowr maalmood ku sugnaan doono wafdiga uu qayb ka yahay gudoomiyaha bangiga dhexe ee dalka ayaa garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho waxa ka sii sagotay xubno ka tirsan labada gol ee dowladda Soomaaliya ila wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa warbaahinta u sheegay in ra'iisul wasaare Khayre uu la kulmi doono ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Qatar Khalid bin Khalifa bin Abdul Aziz Al Thani iyo amiirka dalka Qatar Tamim bin Hamad Al Thani ila wareedada ayaa sidoo kale inoo sheegay in ujeedka safarka uu yahay sidii uu Khayre dowladda Qatar uga codsan lahaa in ay dib u bilowdo taageerada dhaqaale oo ay siin jirtay dowladda Qatar uu hakad ku yimid kadib markii la magacaabay ra'iisul wasaaraha cusub ee Qatar 28 Janaayo ee sanadkan Qatar ayaa saaxiib dhow la ah dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hase yeeshee taageerada Qatar ee Soomaaliya ayaa ah mid aad u kooban oo aan muuqan marka loo barbar dhigo Turkiga oo ah dalka ugu weyn ee taageera Soomaaliya watay daawadalintaasi aan ku soo gabagabeynayna barnaamijkeena wararka isha sirdoonka ee siyaasadda kala socoteen Ali Xildoon channel tan inta warka xiga dib u kulmi doono sida ay nabadgelyo